بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال مركل اسكو soo noqdo wanaagsan barnaamijkeeni dhacdooyinka toddobaadkii tagay oo aynu ku soo qaadan doonaan bal horyaalada kala duwan ee qaaradda jeer way kula laadeen 5 kulan iyo 6 kulan iyo wax ka yar ayaa dhiman waxaad moodaa horyaalada ugu xiisaha badan inay noqdeen kuwa Talyaaniga Spain Ingiriiska waa lagu kala baxay oo kulan kaliya iyo gool kaliya ka xigta Liverpool inay hantaan horyaalkoodii 20aad iyo Premier League oo ay qaadi doonaan xilli ciyaareedkan laakiin dagaalka ugu badan wuxuu ka dhici doonaa top 4 oo 5 kooxood laba dhibcood kaliya u dhaxayso Ingiriiska iyo sanadkan matali doona Tottenham iyo Manchester iyo Chelsea rajadooda Europe ay ka keeni karaan miyay koobkooda ku soo guuleysan karaan Barcelona Real Madrid guul ciriiriya ay ka gaareen toddobaadkan laakiin horyaalka Liga Serie A dalka Talyaaniga waxaad moodaa in labada kooxood Napoli iyo Inter Milan ay toddobaadkan mucjisooyin waaweyn ay ka dhaceen reer Milano hal habeen la wada tumay ciyaarihii xiisaha badnaa liiga dalka Faransiiska iska badaa halka Bayern ay u dhow yihiin inay ku guuleystaan horyaalka dalkaasi Jarmalka ee Bundesliga muddo sanad ay ka maqnaayeen si guud horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub isbedelada macallimiinta ka dhici kara ayaan gudagali doonaa haddii ay idmo intaaynu ku guda jirno barnaamijka barnaamijka waxa igala qayb qaata oo igala soo saaray Ustaad Zakariya Cabdi Maxamed oo aynu wada falanqeyn doono bal barnaamijkeena haddii ay idmo Ustaad soo dhawow toddobaadka xiga Abriil aan soo gaarnay maybe saan oo dhiman horyaaladii gabagaba waaye kuwa qaarkood waa lagu kala baxay kuwana waxaad moodaa meelihii aan filayna mooyee meelihii sale ay soo gaareen toddobaadkii hore hadda differentiga ka waran isbedelka weyn kaliya wuxuu ka dhacay Balil horta aad u maasantay dhamaan daawadayaashan waa salaama Italian Serie A oo hadda ay noqotay Inter iyo Napoli isku dhibcan noqdeen horyaalada Europe oo idin kaasa loo daawan doonaa iyo sidoo kale Spanish Liga wali 4 dhibcood farqi u dhaxeeyo Barcelona iyo Real laakiin horyaalada kale Spain iyo waxaan dhigi karaa Jarmalka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska waa soo idlaadeen marka horyaalkan daawan doon waa Serie A ila liigaha sida muuqato iyo Champions League oo asagana marxalada xiiso badan soo gaaray iyo koobka Europe gabagaba ee toddobaadkan waatahay Ustaad waxaan ku bilaabaynaa horyaalka kubadda cagta dalka Ingiriiska ee Premier League toddobaadkan Man City waa ay tabadiyeen Everton aan ognahay kooxaha top 6 inay aad ugu adkeyso alhamdulillah kooxaha top 6 aad ugu adkeysa David Moyes waxaad moodaa haddaan qaldanay Chelsea Barrojo la soo galay Arsenal Barrojo la galay Man City kulankii hore Barrojo la galay iyadoo Etihad la joogo hadda Everton in uu 2 gool iyo ever waliba ciyaarihii extra time ama waqtigii gabagabada ee dhaliyaan Pep moodaa xilligan inuu dhibco lumiyo ma rabo top 4 inuu ku dhameysto raba wayba tahay sababta Guardiola hore wuxuu u dhahay kulamada harsan waa no final hadda waxay ka dhigantay maalinba markuu guuleysto ku sii dhawaana hadafkiisa ku aadan inuu xaqiijiyo 4 sare culayska ugu weyn toddobaadkan wuxuu ka qabsaday Everton in lagu soo badiyeen wax saaran ma Goodson baa ka warqabna Arsenal lagu gooyeen Liverpool lagu lugooyay garoonkaas marka waxay toddobaad kale oo gool muhiim u gaaray Pep sida aragtay ahaan qabtan way soo baxaysaa Balil ku aadan in Man City ay ka mid noqon doonto kooxaha top 4 ku dhameysan karo isbuucan Ustaad Haaland waa uu maqan yahay dhowr ciyaaryahan De Bruyne waxaad moodaaba hadda in siisakii ugu fiicnaaba in hadda uu qaadanayo waana sanadkiisii ugu dambeeyay kontraktigiisa Man City Kevin De Bruyne aad ugu qayb qaadanaya guulaha kooxda waliba siisakan bilowgiisii ilaa dhexda kulamada uu maqnaa ay aad u badneed dhaawac ahaada ama reason ama technical ha u maqnaado ma moodaa Pep hadda ninkan la'aantiis inuusan socon karin mar walba City kama maaran De Bruyne 10 sano ku soo caanamaalayeen laakiin ciyaaryahankaas waqti uu leeyahay inkastoo De Bruyne toddobaadkan oo si adag u hadlo u dhahay diyaaran ahay oo dhahay أنا عافمات قوم معمول قندراس كلهم وكواي أنا وداو أنا كواي مركز دم بحول إن أنا هو بحا وحاجة كانوا ده ولا الهلوة البلد اللي جحرتوا ده ولي حتى دي برونو حكوس يدروح ده ولي الليفل حكوس يعني كياري كراو ده كوه كستنة إنه كبير ديارة وهاي وركاس على فهمي كلام مرك إنه راح يتعرض بالمليك وسجوا هوا ده عادي إنه ما يونايتد كبير ومعقول إنه ليفربول كبير لقي يابا جيلسي إنه آدو ريال مدريد إنه كبير باريس الربان أنا واحد أسلام مركز سدود دي برونو أهلي سعودي عربي ما أده إسلاي هاي مريكان ما أده دونه وحورا مان سيتي إنه تصمم الكودا ولي ها صوبته تصالح على سوق التاجر سيتي حتى واحد فاين داج يسوي أسكت دقيقهم إن فاين داج محمد صلاح لا ولا بس أنا لسيه دي برونو أو 8 سنة كوحدة أسوي الجماعة إسكبح لو واحد معمول سيتي جارديولا وقلدين مركب إني هوا كيفن ولا يقدر درين هاي لكن حمود إن سيتي كوقس بين بدر كيس إنه كان حل عرات كما كون جارديولا ولي سلوي قان بليلو دانستوى نيكاس وكاد دانستنا وقت وكاد دانستوى أنت روحك وجرو هذه أنت سلوك مرضى أو لغلسه واسكبحه كل ما سيتي بدر كيس كراسن دون سنة كان عدي جامي ليج ما هذا معنا كلفتي سوا الله وحيدي أنا جا مالجلنتين يقاضي اللي مالجلا وحي كحرنا دون تأينا جامي ليج إيمان هذا جامي ليج عيارين عيد كو إيماني مال عيارين والبوين حربا سيدي وترتن كان دقوين أقصو قيب أقصو مقال لها ما سيتنا كوح ترتمي سواي كل وانا لما رجلين دونا
anyway hambal yaalina kooxda Man City wisa toddobaadkan waxa la filayay barangi miyay ahayd ma aqaan war habeen waxa arkayna kubadda cagta oo raaxaysanayna habeen murugo waay oo Trafford waxa ka dhacay maxay tahay markii Premier League la habeen waa amaanayna warnimadka comeback kubadda cagta way maxayeen habeen Bluesonta laga dhigay loogu dhameeyna ayaga Premier League xisaabta ugu ma jiro Manchester United Europa League waa sidaas fiiri ustaad macnaha Europa League comeback la sameeyay aadiyad marka warkii oo ahaa ciyaaran safa ma soo baxay waaba ahayd maalin ilma yar yar ciyaarsi badan ko hatta kulankan inkastoo qaarkood ciyaarayeen laakiin Manchester United waxa waaye horyaalka dan shaqo kama laha in 15 gool daro ku dhacda fahmi kartaa oo Trafford macalinka intuu joogo 6 jeer ka badan looga badiyay waxaas oo dhan waxa taageerayaasha ay ku qanci karaan oo kaliya inuu koobka Europa League keeno naadiga Champions League ciyaaray xilli ciyaareed kadib wax kasta oo la dul qaadan karaa laakiin hal mid ayaa la isku raacay Manchester United in noob u baahan tahay Rasmus Hojlund 29 kulan hal gool shabaqa gaarsiiyay goosho cidla xataa ma dhalin karo ninkaas kalsooni darada hees awgeed marka Ma United waa inay weerariyaan helaan hadii ay rabaan inay dhibaatadan ka baxaan mid kalena way jirtaa Barilo ciyaartoy badan macalinka ma hay qaana dhaawac waaye ciyaartii Lyon ku soo daal inuu ilmo yar iska ciyaarsi danta waxa uu keenayso in horyaalku ka quusto kuwa ilaa soo isleeyahay sudan isdeed dhibco Manchester United leeyahay afarta xataa wali ma gaarin afarta xataa iyadoo waliba 33 kulan ciyaar waa meesha ugu xumeeda kulay ay koox Man United ay ku dhamaysato waliba koox horyaalka Premier League tirada ugu badan ku guuleysatay kooxda ugu guulaha badan lagu tilmaami karo in hadda 14aad iyo 13aad ay ka aqraabtaan waliba hadda Wolves isku dhibcaan noqdeen 38 dhibcay wada yeesheen waa macnaha waxay ku tusanaysaa kubadda cagta adduunka sida ay u xumaatay kooxdii weyneed ee Man United aheeda maanta qofkii lagu sheekayo kubadda cagta ana badan nin saaxiibkii amaano hore wuxuu yiri niyo yaa taageerta wuxuu yiri Man United goorma ku soo biirtay 2013 waa kooxdan taariikhdeeda idaacadaha ka maqlo ma ogeyn kooxda 38 dhibcood leedo 14aad ay fadhiyaan marka kooxda waqtigii guulihii Man United way soo qaateen kulli marka uu saad rajada Amiron ee ku aadan ku guuleysiga koobka Europa League intee la ka kartaa macnaha rajada aad ahaan marka la qiimeeyo iyo wuxuu haysto iyo saddexda kooxood kala tartanka kuli jira rajadiis aad u saleysa sababtoo haduuba Lyon ka soo kabtay meesha uu ka soo laabtay Manchester moral fiican hayaan Atletico Club horta ugu soo orad maahan anu waxaan qabaa Manchester United Atletico Club Atletico Bilbao kii soo baxa koobka qaadayaan qabaa sababtoo Tottenham Hotspur iyo naadiga Norwegianka Bodø Glimt labadan kala ka xoog badan Manchester United season kooda idil isugu geyn doonaan hil iyo ani waxaan qabaa hadii Atletico Bilbao ka soo baxaan Manchester koobka ayaga iskale mid kalena Balilo waxa qurux badan in Man United imaado Champions League in Chelsea imaado Champions League qurux badan ya koobka xiisa yeelanayo marka bal aan keenno maya ani waa ku sheegaba ani aan wada riixna si kala bal waayo kooxii waa weynaa waay ee dalka Ingiriiska inta Newcastle u taan Faransi oo face 1 kala soo cunla kooxii waa weynaa dalka Ingiriiska inay matalaan aad u fiicnaa lahayd usad naadiga kubadda cagta Arsenal xogaha horyaalka Liverpool dib u dhigay mooyee waxba uma tarin laba nin oo waaweyn hadda ka hor Mick Townsend wuxuu la fiirtamayay adiga waxay sagaashameeydi waay ma daawaya xilligii hore waay macnaha Zaire ka dhacay oo hadda Zanzibar marka feerkii waa u dhacay ninka sanka ku dhuftay wuu dilay marka wuxuu yiri waqti la iga labisamooyay wariigas dhaxal xataa lama gudbin marka waa markii World Heavyweight Championka uu qaadayo waay haddaan qadarnay 5 Classics meelaas waay marka hadda Arsenal Liverpool dib u dhigeen kulankii ay la ciyaareen Ipswich Town season fiican way qaateen inkastoo kooxan relegation ka imaaday iyagu xoogaa ay ugu fiicnaayeen Arteta wuxuu yiri 20 daqiiqo ugu horeysay daqiiqadii ugu fiicnaa xil ciyaareed kana dheelay muxuu ku soo weeyay 35 daqiiqo waxa soo martay Arsenal hal mar aan la sigin kubadda nooc rabaan sameeyay fursadaha rabaan abuuraan 35 minutes 6 gool Arsenal dhalin kareen inkastoo 2 gool ku dhaliyeen marka waa sida uu sheegay hadii hal beeg la saaro Arsenal si qurux badan u ciyaareen laakiin ciyaartu waxay aad kulan la filay Arsenal inuu guuleysan karaan macalinku wuxuu dhahay anaga horyaal kama quusanno dhahay ma ka quusan marka Real Madrid champion ay qaadeen ما يساس كم وضع سيء معناها إلا ما نك لو ليفربول قاد ريال وقاد ليفربول لقيت سجلها دبلسو مركي حد بديان وجونوا لكن أسوي حديدة هلا جاب بدي ليفربول بدي سوريال قادوا ديدين ولي ليفربول جامبيون أو صعبتوا ما يعني هذه هذا حتاجين أسيء أنا أسبوع كستان بدينا يا هدف كي ليفربول ما هنا وحنسكون ديارنا باريس معناها كواحد هذه تدبات كستقول السنة سمورل كأسيد اسمها لكن دي لجاب بدي بوقا جلسة مركي عيارت إبسويتش تاون ولي بترس هذا كله حدش اللي بقول لي راش انتر راش ارسنال marka la sheekaysto waxay ku leeyihiin horta Paris ka soo gudubnay
نيو لبضان وحسي حساب سنو يعني نيو لبضان يعني نفض ما انترنيو دافع قال برشلونه نسوي يرني واسك عيدي كرنا لو كل لحد فينا لك يا دعاي معناها حساب خرافات واي لما كان باريس ومشريرة في سوونكي حلقي لس اركاي او جروبكي ما باريس تي هore ما لما كان هركي كسو لابتين waa ogeyn naadi 20 iyo afraad ku dhameystay waana naadiyashii waaweyn dhan soo wada qaarijiin waa laakiin Arsenal inay qaado ku qorxoonto ceebtan Champions League ma qaadin bal ha ka harto wal London waxa keenan xaafadan oo halka koox leeyahay Champions League haysata qadada wax ku soo darsadaan marka isku usad laakiin aniga waxyaabaha kale yaa waxay tahay Arteta qamaarkan tusaale hadda shalay Rosa lagu qaatay Saka waati ciyaariyaan Ben David ismiya oo saxun u taakalay oo Rosa u qaatay waa la bixiyay dhaawac soo gaaray u dugaar 9 ugu dhameeyay ciyaar noocaasa oo 3 gool ever aan leedahay oo kooxda aad ka position hatta aan xalaba kugu sameeyeen oo kooxda min on eetaan in xidigaagii world class-ka aad badasho aad mashiis maxaa u diiday taas horta wuxuu ka fikiraa macallinka anato horta mid uu ku qaldanaa in ciyaartooyda qaarkood gudaha garoon ku haya midna wuxuu ugu saxsan waxay tahay line up ka shaxu dadka barooya adiga macnaha shaxda 3 koob ku bilaabay baya Paris shax u dhiganaya Paris shaxdan wuxuu diyaarnaa garoonka tababarka xataa ku sameeyay aad Saka hada dhaawac soo gaar wax weyn ma aanu dhaayay iyadoo qoobkin kasto u dubna an qawga oo ciyaarta Crystal Palace inuu san ciyaana laga yaabaa dhaawac hadda ka soo laabtay risk waa horta Saka dhaawaciisa oo digaad xitaa inuu bedelo dhakan haniis inuu bedelo laakiin wuxuu isla koox oo 10 ciyaartooy ah Roose qabaan waxba kama qaadaan ciyaarta baashaalan marka waa sax riski u gal hadda waxba ka daran ba ciyaarta arbacada soo yeeli doona wuxuu diidan yahay kanato hal laga badiyo Liverpool ha qaado diidan yahay Sooriyaalka ma taas way dhacdo Liverpool macnaha hadda حتى هذه بديع حتى بديان ليفربول واش شقيستين هراء سو شقيستين سيزن كودا وحي جناير فبراير كوري ليفربول سو شقيستين حتى صليبه كسب بالله waxay inuu nasiiyeed oo iska ciyaarsiyo Timber iyo Jacob Kuwer wax ciyaarsiyo waxa mooda Arteta markii loo fiirsho halistu galay baleelo aad u badan tahay waa maadaama horyaalkii hadda uu gabagabo uu ku dhiyay oo dhinac u galbaday waxay in ciyaartoydiisii oo dhiyaasado xitaa kaami dambe oo wada bedela anyway Arsenal waxa leeyahay marka meel fiican u rajeen doona Ingiriiskan sanadkan rajooyin weyn ka leeyahay saddexda koob ee tartanka Yurub waliba hadda waxaan arkay xisaab isku soo dhufsanay mana saaxiibanayo oo taageeraan kooxaha Ingiriiska way ku hanjabayaan waa balanaybo rag Manchester taageerno waxay dhahan Europa League keenina ay dhahan oo lagu qaxweynay dhahan rag Arsenal championka keenina ay dhahan rag Chelsea waxay dhahan Conference League keenina Europe dhan banaga qabsanay dhahan teeda kale saas darteed waxay dhahan Liverpool wax sheegay ma laha horyaal qaadan ma hadii oo Liverpool ay qaado wax sheegi doona ma leh teeda kale waxa kaaga daran London 3 koob la keeni karaa تنا ما هو دامي ما معناها كوبا معناها دي ما يتترى ما قادي كرتو لكن waxaan kooda liftiga xisaab isku dhufsanaya London 3 koob la keeni karaa Chelsea di Conference League ee soo qaado Arsenal iyo Tottenham marka London inta laga gali doona ma hadiyeen intooda laakiin Arsenal u rajo fiican ma ya Chelsea Conference League Chelsea Fiorentina iyo Real Betis mid soo baxay hatta halis waa halis waa Fiorentina Musa kii ninkii leey aad u halis yahay ninkii Anthony ahaa oo liftigiisa oo rabo inuu Man United iska gado laakiin way dhici kara laakiin Ingiriiska labada saddexdaas koob looma dhaafi doono aniga ahaan Spanish ka saddex waa qaadi karaan hadii Athletic Madrid Athletic Bilbao qaado Conference Europa League Betis qaadi karto Barcelona qaadi karaan marka waa labada horyaal ay ka sameeyeen waa fiican way ka sanaan doona waliba waa kulli intoodana kulli waxa rajeen doona inay meel waliba koox cusub waa waxyaabo ala yaab Champions League iyo tartamada hadda cusub Europe oo noocan laga dhigay koox aan laga arki jirin hadda imaanoy hadda saddexdan kooxood Ingiriiska inay wada imaadaan sidoo kale Fiorentina iyo kooxaas Bournemouth ma la kooxda hadda Norway miya ma imaajirin waliba ay soo cuneen nimankii Lazio wadnaha ay soo jareen si gud marka kulli tartamada Yurub in noocan u xiiso badan yahay ayad mudda waxa uu maareynaa naadigii Liverpool aniga shalay waa daawanay 12 13 oo ontargada lagu sameeyay nimankii Leicester hal fursad iyaga ma sameeyeen 12 13 korna nimankii Leicester way xirtay laakiin aqoon saaci Arnold oo calool deesta arkaba aqalkii xalaab ku shubay si fiican ka warnay guushaas Arsenal wadnaha jirtay aad iyo guushaas waxay ahayd guul Liverpool aad ugu baahan si horyaalka waa hal eber 10 eber ka qiimo badan aad iyo waa mar un waxay u baahan horyaalka inay finish the line horyaalka gaaraan oo dhameystiraan ciyaartaas waxa aad loo cajaa'ib garan karaa ninka lagu magacaabo Calastro kale soo ciyaar bandhigiis caadi ma ahan asiga la siimaan of the match ka ciyaarta Mohamed Salah xitaa birtu garaacay nin walba fursad uu helay laakiin ugu dambeyntii in gool Arnold lagu badiyaa qorneed ninkaan markuu u heshay dabaaldeg wali uu sameeyay dabaaldegaas dadka qaar kood xitaa waxay leeyihiin waa
ninkii ma wuxuu ka laaban heshiiska Real la galay Liverpool uu sii jooga taageerayaasha socdo dadka qaarna waxay leeyihiin culeysku isaga dejinaya barashka waayaan saarnaa taageerayaasha inuu muujiyo xogaa wanaag shantan kun tartiib wuxuu rabaa intuu madax u salaaco oo dhunto taasina u badan tahay sababtoo ninkan afar jeer Liverpool ka diiday maamulkooda qandaraaska nin haduu qaadanayo marka anyhow laakiin Liverpool inuu ka tago Arnold iyo kale ciyaaryahan world class player 25 jir 26 jir qasaare ku tahay laakiin dhinaca kale markii loo fiiriyo Real Madrid faa'iido u tahay nin waxay helayaan 10 sano soo socoto ciyaari karo garab mid ka ciyaaro tay wanaagsan marka Liverpool qasaare qabays duu ka tago Arnold horyaalkan laakiin inuu u qaado asagu muhiimadiisa horyaalka 20 Liverpool inuu kula guuleysto waana isla shirkii jeel ciyaarta kadib hadaladiisa arkay Twitter lagu soo qoray waa la weydiiyay mustaqbalka Arnold ka war wixii aniga ma khasayso ani heshiis baan siixawi waan macaan afgaaban waa xilligii Saalax iyo xataa oo kontraktadiis wuxuu dhahay arrimaha maamulka arrimaha farsamada ciyaaryahanka duu joogo waa tababara waa ciyaarsiina macna wuxuu yiri hadii Arnold uu joogo waa habi waa ku faraxsanahay laakiin ciyaaryahankayga waay inta kulan oo soo socdana inuu u ciyaari doono arjin doono wixii oo ku saabsan kontraktina maamulka u talaa yiri aniga ima khasayso waaba tahay waliilo mid kale ma kala fiirsanay macallin waxa jirmata afar interna galo macallinkaas hooshis ma jecel hataa inuu ka hadlo mustaqbalka ciyaartooyda mid kale xusida mudan waxay tahay kooxda Liverpool hadda islooda duu Arnold ka tago laakiin Mohamed Salah iyo Van Dijk wixii faa'iido weyn Liverpool u tahay sababtoo ciyaartooy weyn imaanayso xagaa wuxuu sameyn doonaa suuq gal maamulka horyaalna uu qaada macallinkan xidigii waaweyn uu ceshtay lacagna wuu helaa wili 230 milyan kasta Liverpool imaada diyaar aan waxa isleeyahay hadda xilligan Arnold baxaya asay qasaare ku taan qabaa soo markii loo fiirish kooxdu ka tagayo koox horyaal qaade oo Mohamed Salah iyo Van Dijk ka hareen hadi kaliya la baxday waxa xaslay Liverpool ma tabi doon Trent Alexander-Arnold waxay heli karaan ciyaartooy fiican oo garbaha ka ciyaaraan oo booskiisa buuxin karaan asna ma tabi doon Real ku biiraa naadi guuleedu ku biiraya wali waxa aad ugu sayfaan inuu club qabto macalinkiisa doomeesha qabanaya aad u anficila hadda waxa qabanaya ninka lagu magacaabo Alonso iyo Arnold miskiina Alonso ciyaara bacteria ciyaara hadana saddex gadaalo ciyaara wuxuu ka rabaa ninka duwaha inuu wax dhan isku wada raacdo Arnold shaqadaas ma qaban karo nin oo Frimpong dhan hadda Liverpool ciyaar garabkaas oo shaqo badan isku wada qabta wax dhan isku wada qabta Liverpool siisii hore baa gool badan dhali ilaa hadda sidii waayba asiga iyo Grimaldo waa labada ciyaartooy garbaha Yurub uu goolasho badan una caawinta badan waa marka ana waxaan isleeyahay Arnold dabcan gali doona xaalad xun maahane Liverpool xaalad xun ma galayso سفيعان waliba xataa wiilkan Bradley aad u fiican yahay soo ciyaaraya Bradley in kasto dhaawac soo yari ku bilaadeen laakiin Liverpool soo gal way sameyn doontaa waliba hadda waxa arkay in Liverpool talk mid ay dhahan page aan ku xiranayo aan akhbaaradka aqriyo waxa isku soo qiimeeyay Liverpool sidee u kala doontaa siisaka soo socda Liverpool horta marka maamulka ah jeebka gacanta gali oo ku xiyeen maalinta u tagtay dhahan warniyo aan ka qadino waxay ku dhahayaan aniga qadama hayne bal aan baasta kaasa suuq kugu dareynaa hadda isla waxyaabo faa'iido u taa waxay tartan 220 milyan iyo lacag kale oo team farat lacagii Champions League u sii dheer waliba hadda waxa leeyahay kooxda Champions League qaada waxay Liverpool way ka lacag badnaa doontaa waayo kulamadii la guuleystay Liverpool aad u badan hal kulan bas gool dareysan kulanka PSG xataa gool dareen looma xisaabin maadaama ciyaartii ay ka sarataan isla aadi wali waxa arkay marka ku dhawaad adii siisakan lacag ku dhow 300 milyan ay heli doonaan hadii 200 kooxda xitaa lagu maalgeliyo xitaa 100 kooxda lagu maalgeliyo kala bar waxaan dhigi karaa slot ama kooxdan kable u baahan tahay mooyee marka nimankan labada ciyaartooy waxay rabaan Mohamed Salah iyo Van Dijk in kooxda labada sano ay ku dhisaan teenage ciyaartooy dhalinyaro ay ku abuuraan kadibna dhahnimay waa maasatiin Sacuudiyiin labadiina 100 kaliisiin raasada la janno si weyn kulli u macsalaameyn doonaan marka Liverpool siyaasad weyn ay wataan macallinkana si aad kulli ma aqaan islaad wuxuu noqon doona laakiin kooxdan Liverpool markuu imaanayo waxa la leeyahay sagaalaad ma ku dhamaysan doonta Liverpool waxay u laabatay hadda waxa la wabsay haduu horyaal qaado hadii 3 sano xataa ka jiifto waxa cid la hadlaysan waa safiican usad waxa u maareynaa nimayo dagaalkii top 4ka toddobaadkii hore waa ka hadalnay wali waxa moodaa ani fikirkaygan ku dhiganahay wali kooxii ah ka saartay toddobaadkan warkaaga waa maqleen way ka jawaabeen way soo noqdeen horta kulankii adkaa toddobaadkan anigu adkaa aan daawado kulankii Aston Villa Newcastle waa kooxda top 4 ku dagaalamay fiiri Newcastle toddobaad ku jirto iyo Aston Villa toddobaad ku jirto iyo Newcastle saddexaad laba dhibco u dhaxayso wax waliyo kooxda toddoba kooxda sagaal horyaalkii iska iloowa macnaha dhexdii waxa ku jiro Chelsea iyo Nottingham Forest iyo Man City hal dhibco u dhaxayso in kasoo Nottingham Forest caawa gali barnaamijkeena markuu dhamaaday Tottenham la ciyaari doonaan usoo dagaalkan top 4 horyaalka xagga naga dhigba kan ka war
kooxahan waxay ku nasiib badan yihiin balilo 3 position waa awal 2 position ma ilan Bosch sanada Ingiriiska soo dhacsan Arsenal soo dhacaysa markii ay Real reebeen marka Arsenal waa tagay iska dhaaf Liverpool Arsenal marka meel dhigno saddexaad iyo afraad iyo shanaad waa 3 position oo u tartamayaan almost 4 kooxood waaye أنا واحد أصله مركب بوس كاشتنا هذا وحوي نسوي كردي لأن عقلة أنا نيوكاسل أنا وابيها بريمير ليج والوه ما اللي هذا أستون فيلا كريستال بالاس أنت قبتنا عشان لو قبل كريستال بالاس وحقبت نيوكاسل عشان لو قبل هذا نيوكاسل تحققت أستون فيلا أفرا لو نفته وريال معنا وحوي وحي وراك يا كده أنا كجرا لسه كده وريجا يوه مركب أستون فيلا نيوكاسل أفرا قبل الناس ما بكون جيفين باني وحي سمعونا أمريكا وحي سعادة ساسي تهان هذا وحي صوع يعني كورن أدق أو حوك السكوب بحيان باريس أو سبح الله قبل ديان أنا بليلو فراها هذا ما الأسبوع له مساعدنا ما هي وقعدة وحكليس مش كله ما أركب ماشي كله ما تتاجني سببته سنين والبراكات كمان بوجله هذا جلسي مركز الله في شوية أيجاب وبلغته لكن أستون فيلا كان هذا إمري وحاول شقده وقبت عادي معهن أستون فيلا نيوكاسل نوتنغهام فورست مان سيتي جلسي نادي والبقلنتها مركز نول بيوحش شقة استوى شقة كده ولي بس أنت كلنا هذا لمن أدي سبنوات تدبات كان أستون فيلا وحمود داوي إن ما كان سوى لو وصل شيء نيوكاسل سوينا لو شرجبي ورر كسي لو وده أفر جول إنه قبل يابا كنا نصيب بالنايم أول وقت كنيس حتى واحد ناقي وحده معاني كأنه محو يقربها ويقول للش حتى عيارته هل دقص عنه شبكة جارو هذين كلته واللي مركز أستون فيلا بيج تيم وعيارته يدهستان وريال كان أنا بقعنا نتاجي أنا وليبا كل كاس وحيابا مهم كان معني كوارك وضع عياري نيوكاسل أنا قيني ما بقيم أيقا الحوق أيوه نمكي ما كان سيدي أسوق قادين كوكي ليفربول أسوق قادين نمكاس من ثالث أهم ويفي عناية أنت أسوق كلنا كوي تبغى بيت ولا بدل كان أور للشرجبي أو للشرجبي حتى أنا واحد أقدر أسبوع مانشستر أفرق نفتين أسبوعي ده جنب ليلة شنو كريستال بالاس نفتين إيجن ولا سيتو مع هذا طلبات كان ما وليبا هذا هم أوي أستون فيلا نيوكاسل waxa leeyahay waa markii ugu horeysay oo Chris laftigiisa all time top score wuxuu noqday Premier League kooxda kubadda cagta Aston Villa noqday waliba ninka sanadkan kulamada aniga ma arkin wuu xanaaqsan yahay macalinka Brian ku keenay wuxuu fasameeyaa keedu galiya Asensio Rashford waxba isku wadaa Rodgers marka ciyaaryahanka number 9 toos oo qatar ah xitaa hadda Man United qalqaal u jirto waxay taagan yihiin Watkins nasiya Liverpool raba ninkaas meesha ku biro anfaca Watkins aad u anfaca nin dhaawac ma aha wana daciyari aad u fiican yahay usad naadiga Chelsea ciyaartii ka horeysay ee Chelsea gurigeeda lagu ciyaaray aniga waa daawanay ciyaarta asla Chelsea way badisay hal year oo 90 minutes la maray ay Chelsea loo kala bedel laba hal waxa la yiri mugtahay وجزاء سيئة مثلها تينا بنسميه آخر ساعة سيدتكي نين بوكاي ساكا ويق أركب الشارع عندك كونفرنس ليجا تارك جورج مال عندك يديسكو دوما قول اللي هي بالمركز حال وساكا بقدوا شكله بينه ما صعد ذكرت هو وجه سبحان وصوت نبدي مكتب وحده مثل أنا ساكا أو جاجسون ولا وحده سوق معنا أبو رس فيلي سبحان أديك توقف لكن كل انجليز وعن قاس اكاديميكا ويلير انجليز فيعن markuu saad Chelsea guushaas mentaalitahan wax ma ka bedeli kartaa tilka Munich balmaraha asi gool ku cilla oo xaqiiqa oo iska tooro kubada ninka cuquba ku dhacday Greedy la sheegay ku dhacday hadda already 17 kullu siiro December ugu dambeysay la gool oo caawi gool dhashay ninka waa ka wareertay ana Chelsea markaan u soo laabto macalinka xanaaqsan ma ku badiyay waxay aad inuu diirada saaro kooxdiisii uu ka hadlo wuxuu dhahaabo macallimiin Chelsea Soomaar ana ka fiican kulligood oo macna 3 sano ugu dambeysay macallimiinta Soomaar ana ka fiican oo dhahay kooxda oo Champions League imaanaysa 2 sano imaanay ana keenay oo dhahay jawaab faana hal ciyaar oo badiyo ku faanay isbuucan hadda maalinta maadaama hadda booska shanaad uu ku jiro si ku meel gaar waxa taasana hadda caawa baraj galaan Nottingham Forest ma badiyaan lixaad u soo dhaca Chelsea yana warku ugu daalan balilo markuu Balmer hordada ka soo kaco ay kaalna afraad gali karaan inkastoo goolkii Neymar uu aad ugu soo shaqeeyay laftigiisa goolkii laakiin ninka sidoo hore ma kalsooni darra aad caawin laga bahayo gool kalsooni darra aad u wanaagsan toddobaadkan waxa waa toddobaad kale oo adiga badi isbuuca dhamad Everton u baxayaan oo good Stamford Bridge imaanayso xilliga lunch time ka ciyaar 12 bar macalinka Jalla la siiyo ka maqnaan doona marka ani maalin walba miiga tagay yani Chelsea marka Chelsea lagu dhamaysto Chelsea kaligeed maana inta kooxooda isku haystaan waa sugan doonaa soo kala baxaan waatay dhanka kale waxa ka rabaa isoo tusaale ahaan dadku waxa rabaa inaan xasuusiyo horta dalka Ingiriiska sanadkan waa horyaalka ugu nasiibka badan waa waxa leeyahay 11 kooxood laga yaabaa inay Yurub ka aado tartamada Yurub ugu qayb gali doonaan kooxaha rajooyinka kale hadda
shanta kooxood waa wal xaqiijiyo okay. haddii ay Tottenham ama Manchester oo hadda ka baxsan boosaska Europe haddii ay ku soo guuleystaan horyaalkooda waxay aadi karaan Europa League qaadan Europa League iyo Champions League imaan karaan Chelsea maadaama ay ka baxsan tahay booska Champions League taageeraha Chelsea koobka waxay u maleeyaa in Champions League lagu aado Europa League ay imaanaya bas way dabaqada saddexaad waay dabaqada labaad imaan kartaa wiidaasi ku jiraan tusaale ahaan kooxaha isku haysta top 5 ama top 4 Newcastle oo kala kulmo oo harsan Ipswich Town iyo Brighton iyo Chelsea Arsenal Everton oo harsan Arsenal oo wada Everton Nottingham Forest waxa uu harsan Tottenham Brentford Crystal Palace Leicester iyo West Ham iyo Chelsea Chelsea waa sharciga u wada haro Man City waxa uu harsan Aston Villa Wolves Southampton Bournemouth iyo Fulham Chelsea waxa uu harsan Everton Liverpool Newcastle Man United iyo Nottingham Forest shan kun adag waaye waa Man United iyo Nottingham Forest iyo Newcastle iyo Liverpool waay waliba laba kamida boosaska isku haystaan waa Newcastle iyo Nottingham Forest Liverpool waxa rabaa inay xaqiijistaan horyaalkii Man United waa ogtay waa markasta kuna adag waay marka kulamada ugu adag waay Aston Villa kale Man City iyo Fulham iyo Bournemouth iyo Tottenham iyo Man United laftigeeda way adag yihiin Chelsea wax muu hay bal daawashantaas kulan ii sheegtay waa ku adagtay Chelsea marka waa ayaga shaqeysan waa rajo kale ma jirto inkastoo isbuucda ma ka badiyeen Everton rajada ugu fiican noqon doonto ustaadii naadigii booska saddexaad waa soo dhacay way ku fadhiyeen laakiin anigu waa aaminsanaa mar kastaba nimankan way daali doonaan maalin Nottingham Forest hadda booskay joogto waliba ani waxaan leeyahay Nottingham Forest Europa League iska raadsato uma qalanto inay Champions League laakiin mid markii la fiican cadaalad daraba niman 6 bilood ku jira Real 240 mal Arsenal ay hayeen inta laga furmoogsada laga qaad tusaalahaas maxaa soo qaadanaya mid kale keen Chelsea soo qaaday 6 bilood ay xisaabinaysa 240 maalin kubadda cagta kama dhicin Ingiriiska kooxiisa laga maroogsado oo 2 bil oo 3 bir loo qaatay oo horyaalka loo qaatay marka Forest waxa la waxba isku daalin malay markii isku may xitaa caawade badiyaan la ka waran caawade badiyaan caawad Tottenham ani wax micnabada ma waliba gurigiisa waxa leeyahay intaas oo kulana lagu tumay todobaadkii hore waa tiro tuma 4 iyo 2 Wolves ay kaga badiyeen todobaadkii hore guul gaareen miya tan intii August waliba waxa leeyahay guul guura ugu dambeysay marka caaw inay Forest isaga adkeeyaan mooyee رجساس إني ليه هن أمري ماي بس هذا حوار مانينا هريال كودا كتليانية أنا اللي هريال وكاسع هريال كمش هريال تليانية كهذا هريال كدل كتليانية سواء أنا أحس أنيجا هريال كإنجليز وأسكت دعوة ماي تيجي تليان ضدك هرانا هريال كان كح كأود بدأ مجرته إنك استوى كل ما يعاوى ضدك لفيلي أو يباغدين أو كل ما يكاليري فيرتين بابك أجيت كيا أجيته وهو ذا إلهي معناها نفتح كبحدي marka usaad ma moodaa horyaalka Talyaaniga 10 sano ugu dambeysay horyaalkii ugu macaana inaan daawaneen oo agta la isku saaro wayba tahay sababto Napoli horyaalka inkastoo adiga haddana ku cisho wariyo ka tagay todobaadkii hore waxaa jiraan interesi laakiin xasuusnaa hornacii horyaalka markaan sameynayna jimcaadii maxaan dhahay Balilo Inter ama laga badina ama Braga galay safiican oo taanaadi u lagoysma u taagan waay waliba hadda waxaan fiiriyay afartii kun ugu dambeysay labada waalid dilay Inter labada Braga galay Inter waa daaleen waa daal badan ka muuqda horyaalka Talyaaniga waa sida sheegtay in muddaakii ugu xisaab badnaa daawanayna Napoli ayaga waxay soo hogaaminayaan Agosto ilaa Janaayo soo wadeen kadib Inter kala wareegtay Inter hadda horyaalka hogaaminaysa toddobaadkii ugu fiicnaa hadda horyaalka marshada la gashan doona sababtoo guuldarada Inter ku dhacday ee guusha Napoli Empoli ka heleen waxay keentay horyaalka labada kooxood inay isku dhibcay yihiin min 73 dhibcood min 5 kulna dhiman Inter waxa u sii dheer 2 kulno Champions League kulankii kale hadda waa baaqarabaa Milan usbuucan Bob France Bobki geeriyooda awgiis waxa Talyaaniga dhan bana fursada oo ay san doona marka horyaalkiiba hadda waxaan ka cabsanaa Cointon wuxuu dhahay hadda xasuustid anaga Inter waxaan gaadana Championkan gaadana Bayern marka ku aadanay Bayern waa celin waayeen marka ciyaar Bayern way guuleysteen laakiin hadda iyagu baa in Inter soo baxdo u roonelo u socdaan aadiyad marka usad hatta kulamada u dhiman Inter cadal xoogaa way Inter kooxay la dheelayso kooxaha oo top 5 iyo Ordoyo Europa League iyo Champions League waa nimankaana koox yar u harsan usad Inter Milan kulankaas waa daawaday wixita waa laga fursada fiicna usad macani kan wada kooxda baran intuu ka yimid waa macani faraqay niba ilmaha u wato ilmaha caadi ahaan waa aan daaleenba في جنس إيطاليانا لها فورنتينو وتي لبسنا فورنتينو وحكينا مرنا فينال مرنا قسم فينال وحكينا كونفرنس ليج وحكينا مركو موت وكتجي بولونيا لو ديبي وابا كان جنبيون كرتو كور اللحد تبع يا لو قبل لكن كدي بهذا الجناي إلا هاد دوريالك
dhowr iyo 10 kulan hal kulan bisa laga badiyay Napoli waliba Atlanta toddobaadkii hore garaacday miya toddobaadkii hore Atlanta laba gool ibar kaga badisay Napoli ka celshay Inter ka badisay Roma ka celiyay Juventus ka minano tumay hadda horyaalka waxa waaye kaalin afraad fadhiya Juventus kulanku u baaqday marka booska afraad fadhiya waxa macallin aad u fiican waa tactical spirit badan xanaaq badan waa macallin banaankiis ku dhacwa si fiican waliba ciyaarta markay dhamaatay dagaalka kaaga dagaalada macna waa tii Roselesiyo ee dagaalameen Simone Inzaghi wuxuu leeyahay foora waxaan ugu qaldooday oo meesha la dhiga mahane dhowr tilaabo la soo qaaday kadib la soo qaaday foora sax ma ahayn oo dheh waliba Inter-kii Turam hataa uu ka dhaawacay hadana xilli ay soo kaba kareen daqiiqadii 9-3 oo shabaqada gaar Orsolini xilli xun ahayd xilli xun laga dhaliyay usad waxa uma Napoli مليبي أنا مركز سوا شجع مانشستر مليبينيان نقول ليباني أنتوني كونتي وحتاجيها أنت كوبا عكت كوجو دجري ياريها نوع عن وكلاء أو عن سوقاتي أو سيدا إيبد بابي ويلمان أرجعيو وحيري يوفان صوته وبري إنتر ميلان صوته وبري إن كان نابولي أنجوجا إن جرسي إن توتنهام ما يونايتد معناها ما يونايتد كدري أنت صحيري عيالنا مكتوب يكوا والله عيالنا قد كده ودنا سان وددالة طلبات كرواتي أو جل بقول دليل طلبات كان قولكي قوشو دلي عيارتا لحد ما يسي مرة سبيع يقول انت سو فرصات سمي سلم مودا مكتلمي اي كونتي انه اسكو في عينين معلم عياريان كيسونو ياه نوع عياريان لوgu tala galay Antonio Conte inuu ciyaaryahan ka yahay وابي هبل ويدال ديريو بخينو سغال جول ريال الشحل عيارات كان waa wax aan dabcan la gaari karin mid kale tan waxa leeyahay Manchester United hadda shalaynayaan ma Casemiro Erikson cishteen Mason Mount cishteen lacag yar 3 milyan euro ku gadan ninka hadda waxa hadda hadii la dhahay xitaa waa la gadaa 60 milyan 70 milyan kama yaraanayo Napoli horyaalka u qaadi rabaa sida muuqato asiga iyo Lukaku soo caawinayo hadii uu jiro ciyaartooyda Yurub la soo qaatay qad dhaxay ninka fiican hadda ma jirabo falfardiya 6 gool shabaq gaarsiiyo Real u ciyaar ninkan 9 gool oo sii maraan haddana Talyaaniga wuxuu kooxdiisa dhibcaha u shaqeeyay kama kale toddobaad kasta asaab u badiyay hal gool haday taabo maktamani waa laba haday tahay gool uu ku leeyahay Lukaku asaab ashkala qaybsanayaan waxa kale cajiib ah Talyaaniga madaxa aad u qataro ninka ugu yaabo taawarin hadal ku dhalna caadi ma marka Serie A sanadkan toddobaadkan waa loo soo qaaday madaxu ku dhaliyay aad iyo aad Napoli horyaalka inay qaadaan jeclaan laakiin waa laga awood badan yahay tabarti wali shakiya kaaga jirina تذكر العدالة التريانية تالو حتى في جيسياس دتكي هرا ومقتها علاقة نبال كان تتكالش اي عن كويه هوريالك انجليزكي waxaa ka jira moogtahay isbaani isku dhibcan noqotiin waa in kala bixina yaa badii labadiina is aragiina meesha isku dhibcan noqotiin adiga 100 gool oo dadlis ani 20 li adaliyo 80 gool ay sareys waxa lagu leeyahay kala bax kitaabka sheegay kala rabta stadium muqdisho isgeeya saasana fiican kooxdu ku cad macnaha waa way ku qancay xitaa hadii laga qaado way waxa leeyahay waa in kala saarnay adika shaqeeyay weeyeen hadda wiil mar akhrinay xilligii ugu dambeeyay laba koox la kala saaro 65 tiimiya Bologna Inter Milan ma jirto labi ibara Inter Milan looga badiyay oo horyaalkii Bologna markaas ku guuleysatay waa lixda meeyada waa kadib ma dhicin laba koox isku dhibcan noqday oo kulan playoff loo sameeyay hadda horyaalka Spain oo kala dii Barcelona dhibcas ku noqdaan waxa la fiirinaa ان is arag labada kooxood goolashi kadib jaaliyaal waa su'aal sharci ma ah usad dagaalka top 4 kulli Juve iyo Bologna waxa moodaa inay aad u fiican yihiin dadkii kula diriyay 17 game unbeaten way toddobaadkan waa tii hal ibara Verona ugu badiyay iyadoo Dybala dhowr iyo 10 kun loo ka maqan yahay dhaawac halis soo galay kooxda way socotaa badbaadiye isu bedelo waayay nin hero ku soo baxay hadda waxay leeyahay ku bariyaan aniga naga tagay ka warne marta laba shay ka Europe ka jirto Ranieri iyo Chesney xagaagii ciyaaraha ka fariisteen labadaba Chesney Benoni uu ka fariistay Juventus oo xumeese ninkan markuu Cagliari uu Serie A u keenay wuxuu dhahay biswa ani Benoni kala ii dhima mara Cagliari macallin soo bilaabo Serie A u keenay biswa wuxuu dhahay biswa waa ka fariistay dhahay Chesney Benoni waa ka fariistay ninkan waa ka fariistay Chesney Barcelona Chesney hadda Barcelona kan tuu aragtay meesha joogtay iyo hal sano ugu daray Ranieri sidoo kale tan Roma wararta loo dhiibay horyaalkiina hadda waxay joogeen kaalinta 17 joogan Roma meel ay waligood hoos ay joogeen haddana wuxuu keenay position Europe lagu aadi karo Europe League joogan Champions League damac kaga jira oo shaxaado marka macalinkaas best way 17 game unbeaten waxa ugu dambeysay xilli uu Luciano Spalletti hogaaminayo 10 sano ka hor ugu dambeysay waxaan isleeyahay marka Ranieri nin waayeel waa shaqo ma sii wadi karo tababar dhalinyarada qaataan Fabregas oo kale aad u anfaca hadii qaataan macallin kasto tanaago kale hadii qaataan xitaa waa anfacaya kooxdu goosa oo dalikaas ma Talyaani waa anfacaya macallin inta horta lacagta Manchester iska dhuuqoya asiga mishaarkiisu iska qaadanaya koox soo dil bonus hataa male sanadku wuxuu qaataa 10 milyan baan u qaataa
oo kooxda muu cafi karin markii koox kale shaqo kale uu helo oo helo muxuu shaqo ku falaa biilkiisa qaadanayo uu joogaa marka Ranieri Roma waa abaal weyn ku leeyahay sababta meesha ka keenay iyo hadda marxaladda joogan kaafi kala dheeri marka badbaadiyal geesiyaal isu bedelo waay hadda sisli waliba ciyaartooyda jecel waxay leeyahay hanaga tagi sigaarkan waa tartiib soqolka intuu galo soo cabaab ma jooji karo macninkii wali alaab dheer u cabaab alaab dheer ilmo u dirsanaa hatta wuxuu leeyahay dukaankiga soo gala waa barnaamij waxa laga sameeyay iska toral nimankii Milan waa la tumay Paulo Fonseca waxna dhaafsiyo Milan ani tiiman la waa ka xumaaday sababuna ma dheedayaan markan Gasperini oo waliba ayaga kubada fiicna Rafael oo iska falaada horta ninkan Farkas kooxda waxa keenay waa lagu soo lugooyay hal kulankii ugu horeeyay la keenay Roma miya hal gool ka dhaliyay kadib ma arkin cunug kale waxa la keenay Jimenez leeyahay laga keenay hal habeen hal gool dhaliyay miya dib uma arag kooxdan Milan inta oo socota sagaalana kama ka cuno kooxdan oo imaatay aad iyo hadii toddobaadkan hadda badin lahaayeen Champions League rajo kaga jiri lahayd macalinku wuxuu dhahay asaas la saxanbo taageerayaasha Milan wuxuu dhahay maxaa la oranaysin tababar aniga fiican ma helaysin oo dhahay waxa idin qaado oo dhahay Super Cup-ka كوده هذا وحده وحيدين قاعد كوب إيطاليا مركز كانوا لما عن لبا كوب من الأوقات بريها مالها هذا كوب إيطاليا أو مكو أدي كرات ما وحيرب لي وكو أدي كرات مركو حولي بلاش على قيل نسين كونسا هورت وصعد بليل أنا وكوش ميلان وحوا نادي أو لحظة أنت فاهم معانكي شقد ولا جابرنا على عيارتوي دي مقنع السنة تاجراش معانك كل جيل معمولكي مركز ميلان هوريال كقدما شنتان كل ميلان وحكي جوكتا يانا قدما كدب ألقري على كينا أجاسم على كينا ولا سوتو سنة ميلان ولا سوء علنا لما ميلان تي وعندا صلى الله عليه وسلم والله وحالد حلو من كل حاجه عيال معناها ما اقل ما بايدي حتى ماليد ميلان اي مثلا نمكاس ميلان وحا مدين بري اي زلطان كيسد كورن هدنا بيولين ولا وقدر ستيفان بيولين ولا مالديني مركو كوخ دايركتورك او اها يا كوخ ميلان اساس ايدو بابا سنه و كرفا iyo تامي ابراهام dad shaxaada kooxda dhisay horyaal u qaad wuu toosi kadib asay buriyeenba hay ka war abaal xumo u geystay way ku abaal ninka waan ognaa ninkaas lejan weyn oo aha ninka mishaar qaata cali shaqeysta waa la kireystaa marka saratan kooxda dumiso ku wada waan gooyay waa ninkii ruja ah iska tagay walaalka golinta asaga waa waxba ma hayaba cid ku tartami karta male in kasto golashiisi ay yaraadeen marka Milan ciyaareedkan gool darxuna soo gaartay kulamadii caawan wala baaji daawadayaal oo barnaamijkeena kadib Fiorentina iyo sidoo kale kooxdii Cagliari Barmi Juventus Lazio Genoa marka xitaa koob Italia shakiya ku jiro 3-4 kulamadii la dheeli lahaa maadaama boobkii uu baqtiyay oo niswaa Talyaaniga waa oynay maalmahan Talyaaniga taasiya u taalo waayo Vaticanka runta ugu weynaa ku taala madax iyo mas'uuliyiin ku sii qulqulay marka shartooda ilaahan dhaafsi anaga wax naga galma leeyahay ninka dhintaba salaxeedana naga badan usad hulaaka dalka Spain aniga meel u dhacay aniga ma aqaan ina dhiidood waa isdhiibay meel ma dhicin aniga waa dhinac u dhacay markaan arko kulankii toddobaadkan inkastoo aan dhaliilsanahay qaabkii Barcelona ay ku badisay dad badan iyo u maleyn inaan aniga Barcelona duray laakiin go'aanadii garsoor ee ka dhacay kulankii Celta Vigo iyo Barcelona waa daawanay saddex gool iyo gool ciyaartii ay marisay asla way dhamaatay inama kan soo laabtay ma wadintaanba Rafinha iyo waati 3 iyo 4 markii ay ku dhamaatay goor loo dhigay aqorsaaci 98 daqiiqo Celta Vigo way doodeen Rosa laga diiday ninkii Rafinha ahaa waxyaabo aan kubadda cagta ku wanaagsan Fair Play sameeyay wili aan xumadii garoonka wuu sii wadaanin hatta asbas miya oo saas u kala tuuray in badan kulankaas ka waran shid cajiib ka ah ciyaartaas Barcelona waxay sameeyeen soo laabasho wali ee qaladaad yar uu iska dirin dhinaca garsoorka laakiin Barcelona waxay taagan yihiin anaga waa nagala heelinayaa kooxaha horyaalada Yurub ee Champions League u matalaan dalalkooda waa la nasiyaa waqti waxa la ciyaarsiyaa fiican la ciyaarsiyaa kulamada loo kala fogeeyaa filig wuxuu taagan ciyaaraha saane jaqna wiihin saacadaha la ciyaaraha sax ma ahan mana naxaysin hada Lewandowski ama xataa waxaan ka warqabnaa El Clasico seegaya labada kulan inta xitaa shakiya ku jiro marka ciyaarta Celta Vigo ee u dagaalameen dhibcaha qasaaraha soo gaara ka badan Barcelona anyhow laakiin guushaas waxay u tahay guul ku nasan karaan waxa uga darnad Lewandowski dhacma laga badiyo laba qasaar u noqon laakiin hada 4 dhibcood way ku nasan karaan Ferran Torres kaalinta qaadan doono Lamine Yamal uu joogaa Rafinha أنا برشلونة قرب ريال كسيمة تقانا بليلو مركي أتلتيك مدري هبينك كم باكو سمين أفر لبا إبر طلبات الدقيقة مرة وحواليه سمين هبينك سو ريال كفرتك سالة تنا هذا كسي أتكي سو حد هذا وقاعد عيان ريال مدري هذا الأسبوع عن وحيكون نصيب بدنايم بقولش وإسكا جاري مهاني مورال ما بهيني ما هي مركني من كان مال أسعداني على الأقل حدا فيلقي وهي برشلونة تذكر أسبوع كسعياتك الدنيا جول كولا لينكر وحكدر أول دوا سدح مرة لس أفرن كان لنا لكن وحكدر أسبوع وقفة كذا عم هذا كسادة كذا عم يندويد بالدو كذا عمي
waxaa hadda ku darsamay Lewandowski nimankan macalinka kooxda soo u wadaysay u dhacmay ismaal balilo safiican waliba waa kulamadan ciriiriga iyo kooxdiiba bedelo fara badan aanu lahayn iyo macalinka oo dhahayo ciyaartooydan waaweyn ee World Class-ga hanasin maadaama hadda kala cararkii la joogo horyaaladiina ay ku dhow yihiin inay soo dhamaadaan marka kulli horyaalkii kooxaha triple-ka ugu dhow aan sidii kala siisi kara way noqon karaan ustaadi Real Madrid ayaga daray bilihii January intaan barnaamijka ku guda jirnay صح naadiga Atletico mara waxa isnirnay horyaalka ma siisa ayaga waxay ku leeyihiin horyaalka nasiinine bal anaga adkaala صح toddobaadkii hore waan ogeyn way badiyeen laakiin toddobaadkan Las Palmas ka badiso صح level Real Madrid iyo Real Madrid iyo waxaan tiigsanaa Barcelona isma qaadanayso صح waay Diego Simeone muwaanayaasi Simeone isbuucan uu sidii horyaalka waa iga dhamaato markii Las Palmas ay ka badisay waliba goolka xilliga laga dhaliyay aakhir daqiiqada 93 meelaas ka dhashay horta Atletico Madrid waxa waa dadaal badan ay wadeen meesha ka soo korseen waa ogeyn horyaalka qabteen laakiin waxa dilay waxa waa kooxdii dhaawacyo badan gal runta markii laga hadlo waxa kale oo culayska haystaan waxay tahay Julian Alvarez maahane kooxda ciyaartooy kale wal kalaas ma haystaan in dhacdays la waday maahane Real iyo Barcelona uma dhigmaan nimankan waxaan isleeyahay marka Simeone hadduu horyaalka dambe uu kooxda sii joogo Atletico ayaa koobar wal kala daala balilo 10 sano oo kooxdan hogaaminayaan ninkan inay iska macalinka iska bedelana fiican meesha agaasima Andrea Berto ka baxay waxay ahayd inuu Diego Simeone uu baxo tababaro cusub kooxdan loo dhiibo isbedelkaas isbedel hala tijaabiyo waxaan isleeyahay Atletico Madrid macalinka soo dhiibo guul u gaarsi kara garoon fiican ay haystaan ciyaartooy haystaan maamul lacag bixinay haystaan kaliya waxa ka dhiman janjiga isbedelka marka Simeone meeshan waa ku raagay Atletico waxaan ugu mishaarka badan waay 40 milyan euro qaataa kaliya qaata ha معنا الدنيا كم مشارنا ما بجربه بسم الله وا كوحدة الكوب مو قاضي وده على مرة قارب فرصة يوروبا ليج يوحنا وقاعي جامبي ليج ريال لا بجرب جامبي ليج لا بفين على المياه واتي لقى قاضي لكن كوحدة القالي وحيس تطاقي ريال ميل هذا يجرون وينو هذا في عنيسة كل إنكم مسوق ليه أستاذ واتع اللي تكده مديد بركة كل بوسس كيوروبنا ريباتيس يجرون اللي بالبولا بوس كفرات كيسنا يعني ممكن سيسم في عني قادنا في عادي وفي عيون ويلك حتى وحده أمال السعودي ودولي وحده وحنسيجوا كوحي saddex cadwa 40 sano kadib sanadka ruux u qaada koob u qaada haddana wuxuu leeyahay champion keenayaba ayaga uu ciyaarayo si fiican nawoonu ciyaaryahan 22 jir waa waxa laga yaabaa horyaalada kala duwan inuu fashilmeen kastoo nimankii Barcelona iyo Arsenal iyo Chelsea ay rabaan saddex u maarina gabagabada soo gaaray horyaalka dalka Jarmalka Bayern toddobaadkan waati ee Madina Real lag maxaa uga bood Real Madrid Ancelotti culays badan saarna laba guud xanuun badan mentaality aan ma fadhin ciyaartooy badan way ka maqnaayeen kulanka inuu falfard gool u dhaliyo ma muudaa weerarka Real Madrid inuu kala dhantaale waxa la aanay dhanta hadii uu dhalin lahayn ka darnaan leh horyaalkii 6 dhibcood laakiin waa fursado badan way abuureen waa dhalin waayeen laakiin ciyaartu waxay aad kuna dhib badan oo Atletico oo difaac gashay falfardi waa ninka kaliya Real darba banaanka dhalin kara laganimo leh had aan waxaan macalinka uu aanay ku haystaa Ancelotti waxay labadii kulan Arsenal haduu falfardi hadda meesha ka ciyaarsiinaa kulanka uu dhilsiinaa waa dhalin lahaa gool dhalin lahaa saamarka asaas celsho oo dil caafiyo laakiin hadda Atletico horyaalka waxiisa u yeelay 4 dhibcood iyo 5 kulan 6 kulan dhiman still marka Real waa laba kooxood isku dhimayeen wali الكلاس kala xogaa xiisa horyaalka leeyahay Ancelotti isaad mustaqbalkiisa maxaa laga yiri wargeysada waxa lagu yeeshay in la kala tago si oo nabadgelyo ku dhaxan rasmi ah haduu season ka dhameystay Ancelotti uu baxa booskiisa marka Xabi Alonso imaan doona u badan tahay Frontier Baras hadan ku aqaana bariyo soo celina adoo markoo laba sano soo wareego oo soo noqdo Brazil aado yaasigan Brazil Zidane rabaa Zidane wuxuu rabaa inuu Faransa qabto koobka adduunka Faransa Zidane waxa ku qofilan Faransa qabale wax kale ma rabo inuu bedelo raba macna macallimiintii waxay u ruqaansan doonaan in badan qaramadii maadaama naadiyadii ay ku guuleyseen hadda macallimiin yara soo baxay kubadda waxay noqotay kubaddii xadaarada la ciyaaraya Ancelotti wuxuu haystaa wixii milan oo ciyaarsi jiro haystaa kubadda hadda ilmo yar neef leh Arteta Ancelotti tumoy Pep Guardiola aliska tumoya marka Xavi Alonso iyo Mikel Arteta iyo wili Fabregas macallimiinta da'yarta oo waliba macallimiintii hore waxa isleeyahay macallimiinta kubadda cagta ku sii waari kara waxa kamid ah ninkan Paris hayo Luis Enrique way ilmaha yar qaabka uu tababarayo iyo kubadda casriga uu leeyahay isla jaan qaadi kara laakiin Ancelotti kubadii hore haysta ciyaartoyda uu dila marka taasna ma fiicna waxa dalka Jarmalka Bayern farku shaqo ma rabaan toddobaadkan adiga guulaasiis waxay tiri Sampaoli ay ka adkaanayaan hal gool dhalinayaan war laba ma dhali karaan maxay dhibaatada waa laga bareejay waliba waa daalayeen kooxda waxaan isleeyahay waxa saameyn ku yeelay daalayeen ma dheelaan tarta kale ma dheelaan ma sanadka hore daalka hore ku jiro kii hore ku jiro saddex koob sanadka hore ay qaraabanayeen
Alonso bixitaankiisana kooxda saameyn inuu ku yeelato laga yaabaa in yaa horta Harry Kane ka baxo habaarka la dhahay koob qaadika ha soo ilaa wana soo ilaa hadda wuxuu sareeyaa 6 dhibcood iyo 4 kulna dhiman wuxuu u baahan 2 gool kaliya u baahan horyaalka marka Harry Kane waa qaada ugu dambeyntii wasta waayna markaan oo Bayer Leverkusen labadaas kulan gudaheeda mid luminay la suma haleen karo aad marka Harry Kane hanbali horumarsan siinay maadaama habaarkii oo koob la'aantu ka baxay safiican marka waa kulli guul u noqon doonta dalka Jarmalka si guud ustaad gabagabadan soo gaarnay kulankii toddobaadka ugu fiicnaa ka noqon kara toddobaadkan ciyaar xiisa badan la ciyaaray kulankii Barcelona Celta Vigo waxa xiisa badan ma jiro xagana la aadimiya aniga Bologna Inter Milan ana Talyaani waa ugu dhaf hatta Aston Villa iyo laakiin 4 iyo 1 natiijo Celta Vigo waxa ciyaar xiisa badan ma jiro saddex gool Barcelona ka dhashay waa wareereen waa isfiirsheen inta bareejeen xilliga goolka dhasheen cajiib ah waliba aniga laakiin isbuuc ay dheereysay waxaan dhilaa Lyon Manchester dhilaa Lyon Manchester ka tobaadkii taga waa markii Lyon Manchester ka soo badiyay Francisco yaan hilmaamin xalayna markii Santa Ater ma la dhagax iyo waxa ka dhacday meesha garsoor hadda boor waxay soo qortay Harry Maguire kooxmees miya laba kooxood oo daris adduunka isku nacay hatta taageerayaasha oo Lyon waa laga mamnuuc kulankaas inay imaadaan waxay sameeyeen garsooriye dakhran xitaa kaaliye dakhran ciyaartii 40 daqiiqad la hakiyay Olympic Lyon baskooda meel ka soo galo garoonka waaye markuu baxay hatta 2 saac waana laga badsheen waxa waaye nimo Saint Etienne waxa waaye isku xaafado ma is arkaan adduunka isku nacbiin waan la garaacay kooxdii waliba Harry Maguire boorray soo qaateen Maguire magaco yeeshaba marka si guud waxa moodaa horyaalkaas halkaas inuu galbadayba laakiin Lyon meesha ay ku jirta aad aniga iyo cajiib Serie B laakiin kulli waan arki doonaa si guud daawaya ciyaaryahanka usbuuca yaasina kulanka xagga siinay ciyaaryahanka usbuuca player of the week ciyaartoy badan u qalmaan aan waxa isleeyahay waxaan siin lahaa ninka lagu magacaabo taas la siinaa cunigaas oo Rafinha laba gool dhashay Rafinha toddobaad walba Champions League meel walba ku qiimeeyay Orsolini ka war Orsolini asagana waa fiicnaa waa ilaa Inter oo la cili waayay Inter oo laga badiyay Serie A waxa ugu dambeysay mar hore muddo ugu dambeysay marka Inter Milan Inzaghi iyo xulafadiisa guud marka daawaya inta sarbeena ku soo gabagabeeno barnaamijkeeni toddobaadkan ciyaarihii ugu waaweynaa Yurub horyaalana 5 kulan iyo 4 kulan waxyaabo dhiman Talyaaniga Spain ilaa maalmaha ugu dambeeya cagta la sar saari doona hadii aan wax isbedelin dalka Spain kulamada kale ee soo socda marka si guud Jarmalkii iyo Ingiriiskii iyo Faransiiskiina iyagoo hal dhinac u dhaceen oo Liverpool kale guul ka xigto nimankii Parisna hore u qaateen ba 6 kulan iyadoo dhiman yahay Bayern 2 kulan bisa ka xigto in Harry Kane horyaalkii ugu horeeyay ama koobkii ugu horeeyay xirfadiisa ciyaareen oo ku guuleyso marka inta sarabna ku soo gabagabeeno aniga ustaadka adikana waad ku maasantii daawashada maasantii